بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا ليال وكلن كني لحية طبناد يعني كجور رميني بشهر رمضان إياه عبادات ككل حجرة يحكام تدي عذاب تدي وحين موضوع عن كسوة قاضنا حيالها للرباقف كمسلم كاي بشهر رمضان حقيقية وحكم بذا تحقيق التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قف إنه حقيقية بشتى توبة كان يا ربي يقول الله سبحانه وتعالى توبته مركه هراء وواجب قف كصا مسلم سهرا إلهي بافري وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون مؤمنين تا إلهي سبحانه وتعالى توبة كان والله أمري فلاحنا waa lagu xidha waxa la waa liibaanaysan hadaa toobad keentaan waxa kale ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina aamanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha ilaahay u toobad keena tawbatan nasuha toobad saafi ah u toobad keena buu ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala ayaduna waa muhiimad ilaahay subhanahu wa ta'ala waajibnimadeena dareensiinayo sida imaam al-qurtubi iyo qeyrkiiba sheegeen muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin qofka muslimka inay waajib ku tahay dambi kasto ilaahay ka galay inuu ka toobad keeno ama dambi yar ha ahaado ama dambi weyn ha ahaado waa waajib qofka muslimku inuu toobad keeno ayadoo sidaa tahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu saa inoogu waajibiyay haddana fadaa'il tira badan ayaa waajibka laga helayaa fadaa'ilka waxa kamid ah qofku markuu si dhab ah u toobad keeno oo toobadaasi ay shuruudeedii leedahay in ilaahay siiyo subhanahu wa ta'ala dambi la'aan oo dunuubtii laga dhaqo laga cafiyo at-taa'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah xadiis ayma badan saxiixiyeen ayaa rasuulku wuxuu yiri salaatu wasalaam qofka ka toobad keenay dambigii au ku dhacay oo toobad dhaba la yimid wuxuu la mid yahay kama la dhanba lahu qof aan dambi balahayn buu la mid yahay waxa kale oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam ka sugan ilaahay inuu ku farxo qofka toobadiisa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala toobada adoonkiisa uu ku farxo ayaa rasuulka ka sugan kaleey salaatu wasalaam marka waa karam ilaahay iyo deeqsinimo rabbi maadaama aynaan macsuumiin ahayn oo mar walba dambi inaga dhacayo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ina siiyay albaabka toobada la yiraahdo iyo soo laabashada rabbi loo soo laabto الباب كأنه إلهي نوفري وإلهي رحمة ديسه سبحانه وتعالى نحريست إلهي أولا ربا إن إلهي وقم هذا علينا بشان رمضان بركة ما داب قفك السومية ما داب قيام الليل لا إيمان أيه ما داب أي تهي بشا وقب بدنا إلهي ضدك أو نارتك حريه ما داب أي تهي بشا رحمات كإلهي يغفران كيس يد من داف كيس يسود دقيين وحال ربا قفك اللمبر ون إنه كدكتو إنه حقيقيو إنه إلهي أطابت كيانو inuu rabbi uga soo laabto wixii dunuubaha ka dhacay inuu rabbi subhanahu wa ta'ala safahaadkii aw madoobeeyay ee dambiyada uu ku madoobeeyay inuu dhaqo cadeeyo oo nadiifiyo ayaa laga doonayaa toobadaas qofka muslimka ah uu xaqiijiyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala u laabto waajib saaran weeye waxaynu u dambaysiinaynaa shuruudaha jira laga rabo qofku markuu la rabo inuu toobad dhab la yimaado shuruudaha waxa ka ah qofku dunuubta uu ka toobad keenaya waa inuu ka dhaxbaxo adoo xaggan dambigi ka wada xaggan astaghfirullah kale sax maaha waa inaad dunuubti ka dhaxbaxdaa waxa kale oo shardiyo loo baahan yahay inuu qofku ka nadaamoodo oo annadamu tawba nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis ayaa laga wariyaa saas ah qofku inuu murugoodo oo xumaantii ka murugoodo yadaaba waxa la yiraahdo kamida toobadii kamid ah waxa kamid ah oo laga rabaa inuu go'aansado oo qalbiga ka go'aansado inuusan dambiga dib u dambayso ugu dhici doonin mar dambe inuusan ku dhici doonin uu go'aansado hadii hadhowta mar kale oo shaydaan ku ridana mar kastuu toobad keenaya waxa laga rabaa inuu go'aan qalbiga ka qaato inuusan xumaanta iyo dambiga dib ugu laaban doonin ayaa laga doonayaa waxa sidoo kale laga rabaa walaalayaal oo qofka muslimka laga doonayaa hadii wuxuu ka toobad keenaya uu yahay xuquuq dadku ku leeyihiin bila aadanku ku leeyahay aadamuhu ku leeyahay waxa laga doonayaa inuu xuquuqda ka xalaaloobo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uga laabto oo qofka xuquuqdiisa u celiyo ama uu yahay war ii saamaxo saamaxaad uu ka dalbado sida uu ku saamaxo ayaa laga doonayaa waxaynu u dambaysiinaynaa
istikfaarta in la badiyo iyo dembi dhaafka rabbi la weydiisanayo astagfirullah qofka uu leeyahay inuu badiyo waayo towbaday ka mid tahay. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.